xaalad biyo la'aan ah oo aad u daran ayaa laga soo sheegayaa deegaano ay ka mid tahay degmada Taleex ee gobolka Sool xilli roobab hordhac ah oo aan biyo badan lahayn ay ka da'een qaybo ka mid ah deegaanada Sool Sanaag iyo Cayn isla markaasna deegaano fara badan ay ka jiraan abaaro iyo biyo la'aan xoogan haddaba si aan ugu koorgalno xaaladahaasi iyo waliba sida ay wax u jiraan ayaa waxaanu khadka telefoonka degmada Taleex ee gobolka Sool kula xiriiray Cabdikariin Diiriye oo kamid ah waxgaradka deegaankaasi oo aan ka waraystay sida ay xaaladaasi u jirto iyo waliba sidoo kale sida ay u saameysay dadka ku dhaqan deegaankaasi marka ugu horeysa ku soo dhawo wakaalada Mucaarad News bal waxaad warbixin guud naga siisaa maadaama aad ka mid tahay waxgaradka deegaanka Cabdikariin Diiriye xaaladani biyo la'aanta ah iyo waliba sidoo kale sida ay u saameysay xoolo dhaqatada ku dhaqan deegaankaasi warar waxa weeye xaaladu waa kaliishiga roobka ay raagay waxa jirta roob hordhaca sheegtay meel la iskugu ururay dadku inta badan baabuurta ma awoodaan iyo biyaha iyo dooylaha ma awoodaan dadka maatooyinka dhulkii baa lagaga tagay sidoo kale markaa ku tilmaamo dhumay oo kale kacaya xalin oo kale oo markii hore naqayaasha laga fariistay hadda xaggan dhinaca kan waqooyiga loo hayaamay oo roob hordhacayana laga ka daay yana saas oo kale baa waxa ka jira iyo kaliin meertay marka xaaladahaasi saasi weeye waxa loo yahay wixii arinta danaynaya ama ka caawin jiray ama hay'adaha noqoto ama jaaliyadaha ka soo jeeda Sool iyo Sanaag iyo Cayn ha noqoto waxaan ugu baaqaynaa xaaladaha adag ee halka ka soo degmada ka jira guud ahaanba gobolka Sool oo kale marka haddana way si kala daran tahay meesha hadda la tuulada Buxdheer la yiraahdo waa cidla oo waa laga hayaabay dadkina wuxuu jiraa naqyowgaasi aadeen daryeel badan bay iyo maxaan ku raadayay biyo la'aan daryeel badan bay u baahan yihiin in laga daryeelo biyo la'aanta iyo xagga caafimaadka arrimahaas oo dhan baa jira guud ahaan sidoo kale waa la fiican yahay dhiba mid lama qabo dadku wax dhiba ma qabaan xagga nabadgelyada aad bay wanaagsan tahay laakiin abaar baa soo food saartay iyo xaqad iyo irkii oo aan weli si fiican u diin arrintaas hadda waxay weydiisay waa intaas deegaamada ka jirta iyo dhibaatooyinkaas jira xagga abaarta waa tahay sidaan ogsoonahay Cabdikariin waxaa jirta in gudaha degmada Taleex ee gobolka Sool ay ku yaalaan laba ceel oo aad ay uga cabaan xoolo dhaqatada ku dhaqan deegaanadaasi ama kaba yimaada deegaanada ku dhow degmada Taleex iyo waliba sidoo kale shacab weynaha ku dhaqan gudaha degmadaba ceelashaasi sidaan ogsoonahay qaar kamid ah haatan biyo la'aan ayaa ka jirta baa la leeyahay ama aad bay u biyeerayaan arrimahaasi galaftirkooda wax ma nagaga biirin kartaana sidoo kale markaan hadda tusaale ku siiyo xeelka Taleex dheero oo kale waa u biyeerayay dadkuna aad ugu fara badan yahay magaalada xeelka hayso u fara badan yahay weeye sidoo kale xeel Taleex xeelkan Taleex oo isna xeel kale oo isna dawladda magaalada dhinaca kale kaga yaala isna saas oo kale waa biyeeray waana wasaqoobeen biyuhu hadda waa wasaqaysan yihiin oo waxa la gaaray waa yaraadeen marka ceelashu saasay u biyeerayeen haddii waqtigan hadda ay sidan usii socotana waxaa laga yaabaa inay go'aan waa tahay sida dabcan aad ogsoon tahay gudaha degmada Taleex marka laga yimaado ceelashani ku yaala waxaa ku dhaqnaa ama ku tiirsanaa xoolaha fara badan iyo shacabada fara badan shacabkaas iyo xoolahaasi wax saameyn oo ay ku yeesheen biyo la'aantaas iyo biyo yarada ka jirta gudaha degmada Taleex ma jirtaana aad bay saameysay xooluhu dadku waa ku tiirsanaa xoolaha waa la keeni jiray dadku reediyada waa ku tiirsanaa oo xoolaha dadka kaysan jireen magaalada waa ku tiirsanay xoolihii way hayaameen waxay aadeen dhulkan qiyaasha ka deen saas oo kale dadkii wax magaranaysa xoolihii waa la waayay caanahoodii iyo cadkoodiiba marka nolosha aad bay u adkaatay ama ha noqoto dadkii
manfacaadyo dadka xoolaha ka haysan jiray oo magaalada soo gaari kar waayey ama ha noqoto dadkii ka haysan jiray oo cadka iyo caanaha laga heli jiray haba noqoto aad bay xaaladu kaliisha haddana u adkaatay marka intaas waa tahay waxa markaa xilligan hay-ado gurmad u fidiyey dadkani ku tabaalaysan gudaha degmada Taleex si ay uga haqabtiraan baahiyaha dhanka biyo la'aanta ma jirtaana maya ilaa hadda ma hayno sida kaliisha biyo la'aanta u dhacday ama waxa weeye ma hayno wax naga caawiyay hay-ado naga caawiyay ma hayno waa tahay dhageystayaalkaasina wuxuu Cabdikariin Diiriye oo kamid ah waxgaradka deegaanka Taleex ee gobolka Sool oo khadka telefoonka gudaha degmadaasi iigu waramay aad baad u mahadsantahay